الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد، waxaynu joognay fatrat alwaxy iyo waqtiga ay culimadu ku sheegaan inuu waxyigu waxoogaa kala go-ay, ay ku tilmaamaan inuu ahaa waqti ilaahay ugu talagalay subxaanahu watacaala inuu nebiga u diyaariyo inuu si rasmiya u aqbalo. waayo waxaynu nidhi markii hore waxyi kusoo degay sifajaab ugu soo degay. waxaanaynu soo tilmaamnay inuu aada u baqayay nebigu calayhi salaatu wasalaam, ama uu naxnaxsanaa. kadibna khadiija iyo wariqata binu nawfal ay dejiyeen. waxaynu kaloo soo sheegnay futuurkaasi waxyiga ama waktigaa u go-naa in aaraa kala gedisan ay culammadu sheegaan, laakiin min xayti sanad aan waxba ka asixin. 40 casho ibnu cabaas baa loo tiiriya, qoliya qaarkoodna 3 sano iyo 2 sano iyo badhi waxbay sheegayaan. saaxibu raxiiq almakhtuunna waxaynu nidhi isagu markuu waxoogaa isku duduway wuxuu ku tegayba aragti ah wuxuuba 10 casho inay ahaayeen. oo waataynu nidhi 21kii ramadaan buu markuu xisaabiye uu qaatay inay tahay maalintii waxyigu soo degay, ilaa iyo shawaal 10 casho ayuu waxyigu go-naa buu leeyahy. waktigaasi waa markay soo degtay, yani fatuurkan ama waktigan waxyigu ayaynu sheegaynaa waa waktigii u dhaxeeyey iqra iyo mudathir qaybteeda hore intay soo degaysay. culamaai siira ama culamaai tafsiir qaar ka midina waxay soo arooriyaan mar saddexaad inay jirtay, laakiin markaa saddexaad waa aada bay daciifatay. waa qisada ay u soo arooriyeen in nebiga su-aale la weydiinayey, ruuxda iyo ay ka mid yihiin masaa-ishii kahafkii iyo waxaa la weydiiyey, oo dabeetana in sha allah intuu ilaabay 15 casho ay qaadatay. xadiidkaas isagoo daciif. calaa kulli xaal waxay culimmadu isku waafaqsayeen inuu futuur jiray waa kanuun iqra iyo mudathir inta waktigii u dhaxeeyey. waxaana la isku waafaqsay inaanu wakti badan ahayn. walidaalika xataa ibnu xajar qoladan sanadaha sheegaysa iyagu sanadkooda waa daciif. walidaalika baa ibnu xajar laftiisu wuxuu ku tegaya inay wakti kooban ay ahayd. kadib ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka soo socda xadiidkii saxiixu lbukhaari siduu tilmaamayo, isagoo ka yimid taxanufkiisii, waa waktiga uu leeyahay saaxibu raxiiq lmakhtuunna shuwaal bilowgeedaas bay ahayd. isagoo ka yimi meeshii uu ku taxanusi jiray ama ku tacabudaya ama uu ku cibaadaysanay ku khalweynaya gaarka ugu baxayay oo soo socda, ayuu wuxuu maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa loo yeedhay. dabeetana wuxuu leeyahy waxaan eegay midigtayda, waxba waan ka arki waayey. waxaan eegay dhanka bidix, waxba waan ka arki waayey. xagga hore, xagga dambe, dhan walba waan eegay buu yidhi, waxba waan arki waayey. markii dambe ayaan kor eegay buu yidhi, dabeetana dushayda ayaan waxaan arkay buu yidhi malagii godka igu yimi, waa malakuljibriil oo kursi ku fadhiya bayna aلsamaaءi wاlard. dabeetana faju'istu minhu rucba buu xadiidku tilmaamayay. waana cabsaday buu leeyahy, aad baan uga baqay ilaa ayaan dhulkaba ku dhacay. dabeetana khadiijo ayaan u imi buu yidhi, anigoo le zamiluni zamiluni dathiruni dathiruni wasubi calaya maaan baarida. anigoo le baan imi buu yidhi idada 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 oo biyo qabowna weliba igu shuba. anigoo sidaa le ayaan u imi buu leeyahay khadiija. waa la daday markaasi. markii la daday ee biyo qaboobaaya wax lagu shushubayna waxa soo degay aayaadkan qur-aan ah ee suuratu mudathir ugu horeeya, oo alle subxaanahu watacaala ee leeyahy yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahhir wاrujsa fahjur. aayaadkaas baa soo degay, walaa tamnun tastakthir. oo ilaahay subxaanahu watacaala uu mabda'u risaala ugu dhiibayo. yacni iqra waxay culammadu yidhaahdaan nubuwada ayaa ku bilaabantay, risaaladu ama diristiina tan bay ku bilaabantay. oo ilaahay leeyay qum faandir yaa ayuha almudathir baa la yidhi, war midkan isduuduubayow qum faandir. kac baa ilaahay leeyay subxaana watacaala oo faandir dig. yacni kan isduuduubayow baa ilaahay leeyay subxaana watacaala, kaanamaa loo tilmaamayo waktigii dafciga iyo raaxada iyo hurdada iyo nasashadu iyo ceeshka haniiga ee mutaaxa ah waktigiisii waa dhammaaday. arrin weyn baa lagu faraya kacoo dig. waa sifo runtii qof kasta oo raba inuu xambaaro risaalada tan looga baahan yahay, oo ah qofka risaalada xambaaraya inuu ku talagalo inuu xambaarayo arrin aada u weyn oo aan isku cuntamin inaad nin guri noqoto iyo inaad nin golo noqoto. yacni nin guri inaad ahaato guriga iyo xaaska iyo carruurta iyo intan koobciso koolkooliso, iyo inaad risaaladan xambaartaa
waa isku adagyihin. walidalik baa ilahay wuxuu nabiga ku leeyay yaa ayuha almudathir kan isduuduubayo baa ilahay yidhi subxaana watacaala qum kac baa la yidhi oo faandir dig oo dadka u dig. waa shaygii koowaadee la faro inuu balaaq dadka gaadhsiiyo. ka labaad ee takliifkii aayaadkani tilmaamayaan waxa weeyaan warabbaka fakabir, inuu isagu naftiisa ku dabaqo qadiyadda tan, oo arrintu waxay ku kooban tahay ama ku duuduuban tahay inuu qofku ilaahay weyneeyo subxaana watacaala iyo ka dambeeyo. idan dadkana u dig baa la yidhi, adiguna naftaada ka bilowo warabbaka fakabir, alla weyney subxaana watacaala. khusu bitacdiim oo cidna ha la wadaajinin. masaladaas waa masale u baahan iyaduna ahlu dacwo inay aada ugu fiirsadaan, oo ah waa madkhalka dacwada laga galo. madkhalkan waa indaar iyo tacdiim alle subxaana watacaala in la weyneeyo oo dadka qulubtooda lagu weyneeyo. qofku markuu caqiidaysto ee yaqiinsado ee uu rumeeyo weynida alle subxaana watacaala ayaa hoggaansankiisu fududaanaya. yacni in badan waxaa laga yaabaa abnaa saxwa aljadiida inay isku dayaan masaalixda waxaa laga helaya waxaan inay dadka in badan u sharxaan, laakiin waxaa ka habboon in dadka lagu weyneeyo ilaahay subxaana watacaala qalbigooda. haddii uu qofku ilaahay qalbigiisa uu ku weynaado, wax waloo kalaba markaasi wuu ka hormarinaya, shirki iyo waxaasoo dhanna wuu ka dheeraanaya. idan madkhalka ama meeshii la yidhi dacwada ka gal waxa weeyaan warabbaka fakabir. walidalik baa in badan qur'aanka waxaad arkaysaa iyadoo masaa'ilkaasi ilaahay iyo weynidiisa iyo tacdiimkiisa in badan uu qur-aanku ka sheekaynayo. yani haddaad u fiirsato qur-aanka imise goorba khalaqa asamaawaati waalarda ama sakhara alleyla waannahaara ama waxa alla abuuray iyo qudradiisa iyo awoodiisa. waxaa la yidhahdaa tawxiid arububiya. markuu qofku si fiican u qoro ayay daba socotaaba tawxiid aluluhiya warububiya, tawxiid aluluhiya wa tawxiid alasmaa wasifaat. yacni ilaahay weynidiisu markay qofka qalbiga degto ayaa addoonsiguna bilaabmaa markaa inuu qofku cibaadadana alle u keli yeelo subxaana watacaala. wahiyaabaka fatahir baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala. waa waxyaabihii nebiga la faray ee labaad, maradaada daahirsa baa la yidhi. hiyaabka kan culamada qaarkood waxay ku tilmaamaan ku macnawiya, laakiin labadaba cumuumankiisa aynu ugu qaadaynaa. wahiyaabaka dharkaaga fatahir daahirso, dharkaaga iyo jidhkaaga iyo najaasaadka iyo mustaqdiraadka ka fogow. idan haddii muuqaalka sare uu yahay in la dahiro, waxaad iska garanaysaa muuqaalka hoose in la dahiraana inuu ka wenye qalbiga in la daahir yeelo. oo kow shirkiga iyo najaastiisu, shirkigu waa najaaso, inama almushrikuuna najas baa ilahay yidhi, najaaso ka weyni gaalnimo ma jirto. idan najaasaadka macnawiga ah baa ka weyn najaasaadka xisiga ah. yacni najaasaadkan layska uskagan iyo kaadidan iyo xaarkan iyo waxa ka sii daran oo ka qurhmuun oo ka kudaafad badan kuwa macnawiga ay ugu horraysa gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo wixii la halmaana. saa awgeed baa alle wuxuu leeyay subxaana watacaala wahiyaabaka fatahir, dharkaaga daahir yeel. oo daahirnimadaasi ta muuqaalka sarena lagaa rabo, ta qalbigaana lagaa rabo, oo ay ka mid tahay inaad shirkiga ka fogaato, oo ay ka mid tahay akhlaaqda xun dhammaanteed inayd ka tagto. walidalik baa iyada ilaahay gaar usii tilmaamo waxaa la yidhi warujsa iyo warijsa, labadaba waa laba qiro saxiixe. warujsa fahjur, xumahana rijsigu asliyan waa cadaabka ama sakadka. ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa wixii keenaya o dhanna ka fogow. waxa keenaya ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisuba waa macsidiisa, waa ilaahay oo la caasiyo, kaana ka fogow baa ilahay leeyahy subxaana watacaala. idan qofka muslimka ah waxaa kaloo alla uu nebiga yidhi walaa tamnun tastakir. masaladanina waa masale u baahan ahlu dacwa aayaadkan inay aada sharxooda u fahmaan baa ku fiicantay. walaa tamnun tastakir, ha galladaysan baa wax la yidhi adigoo badsiinyo ku raba. yani waxaa la tilmaamaya waxa kan inaad ilaahay dartii u qabato, ikhlaas inaad u qabato. hadduu noqdo tilka bitilka, waxaad adna ku rajaynayso markaad waxaan samayso dadku iyana inay ama ku weyneeyaan ama magac kuu yeelaan ama aad hanti kaga heshid ama aad caynka kaga heshid, ajarkii aakhira waad waayeysaa. walidalik baa waxaa ku aragteen qur-aanka inta badan maa asalukum calayhi min ajrin, isagoo nebi waliba leh. nebi waloo lasoo dirayba wuxuu leeyahy war anigu hadda dan gaaro aan idinkaga leeyahy ma jirto. ilaahay ku xidhma markaan idin leeyahy, ilaahay ka cabsada markaan idin leeyahy, danaan idinkaga doonayaa ma jirto. idinma lihi madax iga dhigta, idinma lihi daba socda, idinma lihi wax igu siiya, idinma lihi jaah iyo mudnaan iyo waxba toona idinkaga dooni maayo. waa sunnat alambiya. ducadda waxa fiican markaasi dadku inta badan bini aadamku tuhumu iska qabaa. war ninkan waxaan uu idinku yeedhayo ama sharcigan uu leeyahy raacun arma isaga dani ugu jirtaa,
ama armuu madaxnimo ku doonaya ama armuu sidan ku doonaya armaadaasoo dhan waxay ku fiicantahay in marka hore la sheegay inaad waxba kaga doonaynin walidalik baa ilaahay nebiga markuu u bilaabayeyba waxaa la yidhi walaa tamnun tastaktir ha galladaysanin adigoo badsiinyo ku raadinaya oo wax kaga doonaya walirabbika fasbir baa ilaahay ugu gebagabeeyey ariiqan haddaad marto waxa hubaala inaad dhib badan la kulmi doonto walidalik wuxuu u baahan yahay sabir sabirku waa waxa shay inuu midho dhaliyo sabir unbaa u asala waxaan loo sabrin ma midho dhaliyaan wax kasta oo la rabo midho la goosto in laga helo waa inuu noqdaa wax loo sabray oo loo gaadiiday laakiin haddaad xamaasadda hore iyo xufxufta hore ku rabto wax waliba inay ku saxmaan waxba kuma saxmaan walidalik baa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walirabbika fasbir alle ama rabbigaana wixii dartii kugu soo gaadha ee dhib ee mashkilad ee kaa hor yimaada taana u sabir baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala oo in badan u dulqaado aayaadkani markaa waxay tilmaamayaan waa laba qaybood qaybi waxa weeyaan balaaq iyo indaar laleeyahay dadka waxu sheeg qaybta labaadna waxa weeyaan wuxuu isagu ku dhaqmi lahaa iyo qaabku noqon lahaa qof kasta oo raba inuu dad waxu sheego oo diin xambaaraana waxaa looga baahanya inuu si wanaagsan u fahmo aayaadka koowaad ee risaaladii nubuwada ka hadlaya runtii wax badan bay dadka u taageerayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaadkaas ayaa alla ku soo dejiyey dabeetana noloshiisii waxaynu leenahay 20 sano in ka badan ama dhowr iyo 20 sannadood ayuu qaa'im ahaa oo aanu raaxaysan oo u taagnaa inuu alle subxaanahu wa tacaala diintiisa dadka ugu yeedho oo dhibi ka soo gaadhay oo wax waloo ka soo gaadhaba uu ogolaa inuu ugu dulqaato waxay culimmadu halkan tilmaamaan waxoogaa ay kaga warramayaan waxyiga iyo qaababkii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu soo degay waxyigu saynu hore usoo sheegnay waxa ugu horeeyey qayb ah alru'ya saadiqa in riyo dabeetana dhacdadaasi uu sideeda u arki jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu riyoodo ah qaybta labaad waxay ahayd in uu malag qalbigiisa ku afuufo oo waa kii nebigu xadiiska maalan saxiixa ku tilmaamayey ina ruuxu اlqudus nafata fii rawci annahu lan tamuuta nafsu xataa tastakmila risqaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi طalb walaa yaxmilanakum istibطaaءu الrisqi calى an taطlubuuhu bimacصiyaة اllah fainamaa cinda allah laa yunaalu ila biطaacatih yani nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ruuxu اlqudusku oo malakuljibriil ah wuxuu rawcayga ama qalbigayga wuxuu ku afuufay inaan nafina go'i doonin arsaaqdeedu ay dhammaysato mooyaane arsaaq weligaa ha ka warwarin intii lagu katibay adigoo dhammaystira mooyaane naftu kaa bixi mayso kuna weydaaran mayso ee ilaahay ka cabsada buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam oo doonistana fiicnaysiiya xaaraan iyo xalaal midkaad ku raadisaba intii ka badan mayso laakiin wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ajmilu alab doonista wanaajiyo xalaal ku raadiya oo risqigaa naga raagaya ayuu idinku kalifin inay ilaahay macsidiisa martaan ilaahay agtiisa waxa yaalla arsaaqda dee ilaahay baa bixiya ilaahay agtiisa waxa yaallana dee isaga raalli ahaanshihiisa lagu doonaa ilaahay inaad wax ka doonto haddana aad doonto inaad macsidiisa kaga maroojisataa way adagtay idan maadaama ay gacantiisuun ku jirto oo cidda wax laga doonaya isaga un tahay waxaa habboon inaad si fiican uga doonto oo si xalaala aada uga raadiso idan xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya nebigu leeyahay rawcayga ama qalbigayga ayaanu malagu ku afuufay waxaa kaloo qaab saddexaad uu nebigu waxyiga ula kulmi jiray ah inuu malagu ugu yimaado ka rajul isagoo ah oo si caadiya ula hadla oo saxaabada ag joogtaana ay maqlaanba sidii xadiidkii cumar ee macruufka ah wada garanaysaa ee uu lahaa nin marya cadcadsisto caynkaasoo soo galayo dabeetana uu ag fadhiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wax weydiiyo uga jawaabo markii dambe uu ka tegeyna uu nebigu ku yidhi kaasi wuxuu ahaa jibriil oo diintiina idin baraya oo xataa bacdu saxaaba ay leeyihiin dixyat ilkalbi saxaabigii la odhan jiray suuraddiisoo kale uu ku iman jirayba qayb afraad baa jirta oo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam intay saxaabadu weydiiyeen siduu waxyigu kuugu yimaada ayuu wuxuu yidhi mila salsalati اljars dawanka yeedhistiisoo kale mida oo dhawaq hulula waana nooca nebiga ugu adkaan jiray calayhi salaatu wasalaam noocaas markuu waxyigu ugu imanayana xataa iyadoo qabow oo barafku dhacayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhididku dacladiisa ay ka di'i jireen oo hadduu awr fuushan yahay ratigu wuu cuslaan jiray oo wuu fadhiisan jiray dhulka
bale axad الصaxaaba zayd waa kii tilmaamayey maalin maalmaha ka mida iyadoo bawdada nebigu ay saarantahay buu leey yani adinka nebigu isagoo igu tiirsan ayaa waxyigu bilaabay inuu kusoo dego buu leeyay adinkiisiibaa intuu igu cuslaaday ayaan xeji kara ilaa bawdada ay iga kala jabi gaadhay buu leeyay adinkuba way kala jabi gaadhay waana noocu ugu adkaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigu kusoo degayo nooc shanaad baa jira uu ugu soo degi jiray oo ah inuu suuraddiisii asalka ahayd uu ku arkaba taasina iyadoo 2 gooro qurun bay dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil suuraddiisii asalka ahayd 2 jeer unbuu ku arkay sida suuratu najmi baa ilaahay kaga warramaya 2 jeer unbuu kula kulmay waxaa ka mida bay yidhahdeen waxyiga siyaabuu nebigu kula kulmay in uu alle subxaanahu wa tacaala u waxyooday fawqa asamaawaati 7 waa markii la dheelmiyey alisra walmicraajkii markii nebiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam ee malakul jibriil meel go-an uu ku hadhay wuu dhaafay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinda sidrati lmuntaha wixii loogu soo waxyooday waajibaadka salaadu ay ka mid ahayd iyana qaabka gedisan bay ahayd xadiiث اlisra oo masaa'ilka uu sheegayana waxa weeyaan inuu alle toos ula hadlay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii nebi muuseba uu tooska ugula hadlayey siyaabahaasi waa siyaabaha ay tilmaamaan inuu waxyigu nebigu ugu soo degay mushaafaha miyuu u qaatay miyuu isagoo alle arkaya subxaana wa tacaala la kulmay masaladaa salafka waa isku khilaafsan yihin oo waxay ka dhambataa qadiyadda ah nebigu alle ma arkay mise ma arag habeenkaasi la dheelmiyey laakiin sida saxiix ee raajixa ahi waxa weeyaan inaanu arag markaynu intaa soo dhaafno nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha muddo ayuu diintii faafinayey laakiin waxa uu faafinayay muddadaasi hoos muddadan uu hoos u faafinayay yacni muu iclaansan ee dadka ayuu dooranayay wuxuu dooranayay dadka caqliga badan leh dadka dadku wax ka maqlayaan dadka isaga wax ka dhegaysanaya dadka rumaysan ee usilay waa ku raacayaan markiiba mujtamac ayuu kala dooranayay markaasi fardi fardi iyo qof qof iyo midhmidha ayuu wax ugu sheegayay muddadaasi intay ahayd wax sanadoo saxiix kuma soo aroorin inta badan dadku waxay sheegaan 3 sanadood laakiin 3 sanadood waxaa sheega waaqidina waa mutaham iyo ibnu isxaaqna biduuni sanad buu kusoo arooriyey markaa ma soo aroorin wax xadidaya baladari ninka la yidhahdo isna taarikhda qora 4 sanadood buu sheegaa calaa kulli xaal in waqti noocan ay ku socotay jirtaa waa xaqiiqa iyada layskuma khilaafsana ilaa iyo intay nusuustii dambe waandir cashirataka alaqrabiin ay soo degaysa ama fastac bima tu'mar midaad tidhaahdaba aayaadkaasi intay ka soo degayeen ama taxdiidka waktiga ah culamaai taarikh inta badan 3 sanuun bay sheegaan laakiin min xayu alxadiid haddaynu sanadka eegno ma sugna sanad ahaan waktigaasi uu nebigu siriyada waxu waday ee uu hoosta waxu waday dad badan ama dad waxoogaaya ayaa diinta aqbalay waxaynu naqaanaa cumuuman dee ciddii ugu horraysay ee nebigaba dejinaysay ee sheegaysay inaanu bele la kulmayna waxay ahayd khadiija ficlanna waxaynu leenahay khadiiji ciddii ugu horraysay oo saabiqiinta islaamta ayay ka mid ahayd waxaa kaloo cidda saabiqiinta ee rumaysay nebiga ka mid ahaa sida xadiidka tirmidi uu sanadka saxiixa ku warinayo cali bn abi aalib oo la yidhaahdo 10 jir meelahaasu ahaa wiil yar ahaa dadyaga hore uu rumeeyey waxaa ka mid ah zayd ibnu xaritha saxaabigii la odhan jiray ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore tabaniyey ka caadadii carbeed siday ahayd zayd ibnu xaritha yani wuxuu ahaa nin isagoo meel maraya baa la afduubay dabeetana waa la qabsaday waa la gaday addoonnimaa loo iibsaday khadiijo akhiiran iibsatay dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay siisay nebiguna wuu tabaniyey markaa tabanigu waa caada aljaahiliya intaan qur-aanku soo degin suurat alxizaab aayaadkii ku jiray tabaniga mamnuucayay qofku intuu qof ilmo qaato inuu ula dhaqmo sidii ilmo uu dhalay oo looguba abtiriyo carabta caadada waa iska lahayd yani ilmo asliyan aanu dhalin ayuu korsanaya haysanaya ilmahaasaa uu qaadanayaaba dabeetana waa loogu magac daray waa kan gaaladu ilaa hadda isticmaashay adabshanka ay ku tilmaamaan fi shariica laakiin ma banaana oo markii dambe waxya soo degay diidaya masaladaasi waa walaaladiin le islaamnimo ku koriya laakiin qofna ayaan aabihii laga dafirin ciddii dhashay unba dhashay wiilkaasi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ciddii joogtaya isna wuu islaamay waxaynu odhan karnaa cumuuman xaafadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii joogay waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu hor islaamay hadduu yahay cali oo nebigu korinayey hadduu yahay khadiijo oo xaaskiisiiya hadduu yahay zayd ibnu xaritha oo ah ninkaasi uu nebigu tabaniyey
xataa waxaa la tilmaamaa baraka umu ayman islaantii la odhan jiray oo iyana dee ahayd baa islaantii uu uga dhintay addoon aabihii uga dhintay oo uu haystay islaan xabashiyada bay ahayd islaan madow oo xabashiyada laakiin waxay ahayd dumarka ugu khayr badnaa mid ka mid ah kuwa dadku nebigu aadka u jeclaana way ku jirtay saxaabadii waaweynaaye macruufka ahaana way ku jiratay umu ayman islaantaa la odhan jiray waana islaantii nebiga soo korisay ee soo xadaanaysay yani may nuujin laakiin way xadaanadiisa ayay ka qayb qaadatay waana usama islaantii dhashay usamata bnu zayd iyada lafteedu dadkaa hor islaamay bay ku jirtay khaarija beytihi markaynu eegnana dadka kale ciddii ugu hor islaamtay waa abubakr sidiiq saxaabiga la odhan jiray oo ay markii horena saaxiib ahaayeen waa dadkii ugu horeeyey ee islaama yaa u hor islaamay marka la xadido riwaayaad badan oo kala gegedisan baa soo aroora siday isugu xigxigeenna riwaayaad kala gedisan baa soo aroora walidalik bay culamada qaarkood waxay isku dayeen inay jamciyaan waxaasoo dhan ay ku jamciyaan fikrad odhanaysa dumarka khadiija ugu horreysay caruurta yaryar cala ugu horreeyey addoomaha dadkii ahaa zayd baa ugu horreeyey raggii waaweynaaye mudakarkaana abibakar baa ugu horreeyey waa marka nooc min jamc ay isku dayayaan in loo ururiyo abibakar dadkan u horeeyey islaamay inuu ahaa ibnu kaiir maalan wuxuu ka istinbaata xadiidkii sheegayay maalintii intay saxaabadu abibakar iyo axadu saxaaba baa murmay waxaan rajaynayaaba inuu ahaa cumar bin khaaab abibakar khayr allaha siiyo saxaabi weyn buu ahaa saxaabadana dee muslimiintana nebi maxamed dabadii ninka u fadli badan buu ahaa laakiin nin aada u kulul buu ahaa markuu cadhoodo nin aada u sharaarad kulul ayuu ahaa markaa maalin bay isqabteen cumar waxoogaa baa la yaro murmay dabeetana abibakar oo yaro xanaaqsan buu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cadhooday in abibakar laga cadhaysiiyo dabeetana wuxuu nebigu ku lahaa in allaha bacanii ilaykum faqultum kadabt waar ilaahay baa dad iyo ikiin soo diray buu yidhi dabeetana waxay igu tidhaahdeen buu yidhi been baad sheegaysaa abibakarna waa runtaa buu igu yidhi run baad sheegaysaa ii daaya buu lahaa abibakar yani nebigu calayhi salaatu wasalaam abibakar si gaar ayuu ula dhaqmi jiray walidalik buu saxaabadoo dhan lahaa abibakar marnaba gaadhaysaana iska dhaafa ninkan hala ii daayo abibakar markaa waxay leenahay ragga uga hor islaamay buu ka mid ahaa kadib abibakar ayaa isna sacyiyey oo islaamka dadka ugu yeedhayey qofka muslimkaa dhaqanka lagu yaqaana waxa weyaan wixii khayre soo gaadha muslimiinta kalena uu gaadhsiiya islaamku saasuu ku faafay islaamka ma faafiyaan culama un yani culamadu waa ahlulcilmigii masaa'ilka cilmiga iyo wixii diinaya cilmiyaa la weydiiyaa laakiin qof waliba uu garanaya inuu dadka ku yidhaha war laa ilaha illa allah dhe iyo alla ka boqo iyo ilaahay caabud iyo macsida iska daa qof aan garanayni ma jiro idan qof kastaaba hadduu rabo inuu intan dadka gaadhsiiyo waa gaadhsiin karaa bal in aad wada garanaysaan baa jirto in badan oo aan garanayni jirto haddaad rabtaan in salaada la barto inta masaajidka joogta salaada saa loo tukado badiba waa taqaana in badan aan aqoonba saa loo tukadaa jirta intaa ducaad baa unoqon kari lahayd inaad salaada bartaan say u tukadaan iyo ilahay say uga cabsadaan iyo idan diintu waa shay u baahan dadku inuu wada ilaashado muslimiinta oo dhami walidaalika abibakar markiiba wuxuu bilaabay isna dacwo firfircoon oo inuu dadka kala gaadhsiiyaa dabeetana waxaa soo islaamay saxaabada waaweyn ee casharat almubashiriin ragga intooda badani gacanta abibakar baabay ku islaameen baa la yidhaha calaa kulli xaal raggii waaweynaaye ee muslimiinta ee islaamka soo galay markaasi waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu cafaan iyo zubayr ibnu cawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf sacd ibnu abi waqaas طalxa ibnu cubaydillah raggaas baa ka mid ahaa iyo amiinu hadihi اlumma abu cubayda bnu اljarax raggaasi markay soo islaameen weliba waxaad moodaa in ay taarget in la qabtay qabaa'ilkao dhan in wax laga islaamin karo yani waxaad moodaa quraysh reerihii kala gedisnaay oo dhan inay nimankani ka kala tirsanaayeen maala cuثmaan ibnu cafaan oo kale nin umawiya buu ahaa reer bani umaye nin ka tirsan zubayr ibnu cawaam oo kale nin asdiya buu ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sahd ibnu abi waqaas oo kale reer bani zahra bay ahaayeen طalxa ibnu cubaydillaahi oo kale nin taymiya buu ahaa yani waxaad moodaa jilibadii ay qurayshi ka koobnayd oo dhan in la waajahay cid walba sidii cid looga soo heli lahaa si dacwadu aanay u noqon mid reer gaara un reeraha kalena yidhahdaan waa wixii reer hebel wateen oo ay iska fogeeyaan reer gaara un ku koobnaata ayuu reerahoo dhan si isleeg uu waajahay dad badan baa markaasi islaamnimada kolba cidi soo gashay dad iyagaa u hor islaamay waxaa ka mid ahaa markaasi abu cubayda ka mid ah isagoona reer banu xaarisa waxaa ka mid ah abu salama ibnu cabdilasad almakhzumiy iyo haweenaydiisii
salama saxaabadeedii la odhan jiray waxaa ka mid ahaa alarqam ibnu abilarqam almakhzuumi waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu madcuun oo jumaxi isna u dhashay raggaas oo dhami cubaydata ibn اlxaariث ibn cabdilmualib ibn اlmuطalib ibn cabdimunaaf dad badan baa soo islaamay saxaabo dhowra marka laga warramayo saabiquuna alawaliin ilaa 130 dad gaadhaya baa la tilmaamaa oo rag iyo dumarba isugu jira laakiin kolley waa soo kala horhoreeyeen siday u soo kala horreeyeen axaadiis sanadkoodu saxiix iyo tiro badan baa ku soo aroortay laakiin riwaayaadku ay iskhilaafsan yihiin oo maalan axaadiista ka warramaysa oo kale abidar alkhifaariy goortuu islaamay oo kale ama damaad oo kale ka warramaysa ama ka warramaysa yani saxaabadii badan ee soo islaamtay ee noociyaadka kala gedisan u soo islaamay dhowr baa sheeganaya maalan raabicu arbaca inuu ahaa kii afraad inuu ahaa ibnu kathiir iyo marka ay kulminayaan ninka la yidhahdo ibnu xajar alcasqalani waxay leeyihiin axaadiistan o dhan waxaa lagu kulmin karaa bay leeyihin dacwadaas siray ahayd maadaama ay siri ahaydna lama garanaynin kii soo hor islaamay nin waliba wuxuunbuu 2-3 yaqaanay mooyaane wuxuu islaamanadaa ku afara laakiin maadaama wuxu ay sir u socdeen waxaanu calan ahayn kolba cid lala hadlayo kolba qofku soo islaamayuun midba un dhowrkan uu yaqaanay ama la xidhiidhay unbuu moodayo in isagu afreeyey markaasaa laga yaabaa dhowr inoo kala gedisan inuu axaadiis ka soo arorto nin waliba uu leeyahay raabicu arbacaan ahaa kii afreeyey baan ahaa waa fii xuduudi cilmihi bay leeyihin dad kaloo muslimiini oo badan baa jira walow qoyskaa gurigaa nebigana ha noqoto calayhi salaatu wasalaam qoyskao quraaba dee maxay ah marka la sheego khadiija iyo cali iyo zayd marka la sheego saddexdaba laogay inay goor hore islaameen abibakr haddii lagu daro dee afartiiba halka waa joogaanba saa daraaddeed waxaad odhan kartaa axaadiista raabica wada sheegaysa waa fii xuduudi cilmi ayuu mid waliba ka warramayay dadyaw badan baa markaa islaamay dadyawga maalan saabiqiinta ka mid ahay aan laakiin quraysh ahayn waxa aynu soo sheegno o dhami waa quraysh saciid ibnu zayd iyo haweentii uu qabee faatime ee ay cumar bin khaaab walaalahaayeen iyo khabaab ibnu ard saxaabigii la odhan jiray iyo jacfar ibn abi aalib iyo haweenaydiisa ee asmaa bintu cumays la odhan jiray iyo khaalid ibnu saciid ibn alcaas iyo haweenaydiisa amiine la odhan jiray iyo kuwaasoo dhami goor horey soo wada islaameen dadyawga aan ka mid ahayn camaar ibnu yaasir iyo kooxahaasoo dhami goor hore islaameen dadyawga aan ka mid ahayn quraysh ee islaamay waxaa ka mid ah cabdillaahi ibnu mascuud saxaabigii la odhan jiray oo hudali ahaa iyo mascuud ibnu rabiica oo qaari ahaa iyo cabdillaahi ibnu jaxash dadyawga lasii tilmaamo waxaa ka mid ahaa maalan suhayb ibnu sanaan oo ruum u dhashay camaar ibnu yaasir oo cansi ahaa iyo aabihii iyo hooyadii ninkii addoonkii caamir ibnu fuhayra la odhan jiray fuhayra abu fukayha miya may addoon ma ahayn caamir ibnu fuhayra baan rajaynaya raggaasi waxay ka wada mid ahaayeen aduu raggii aan quraysh ahayn ee soo islaamay haweenka aan quraysh ahayn ee islaamay iyagana waxaa ka mid ah umu ayman aynu sheegnay haween badan baa islaamay maalan abibakar oo kale gurigiisaba waa laga wada islaamay ilaa caaisha ay lahayd gurigayga anigu wuxuun baan caqliyaystay buu lahaa reerkuba isagoo muslima reerkayga isagoo qof gaaliba ku jirin ayuun baan anigu caqliyaystay dadyawga hore u islaamay waxaa ka mid ahaa asmaa bintu abibakar oo kale dad badan baa islaamay wax cibaadaada oo soo degay oo macruufoo xoog loo garanaya ma jiro bacd culamaai taariikh ama bacd alculamaa sa ibnu xajar oo kaliyaba waxay ku tagaan qabla alisra walmicraaj qaطcan in salaad la tukan jiray ay jirtay alisra walmicraaj 5 salaadood baa soo degay laakiin ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahay qabla alisra qaطcan salaad la tukada baa jiray caaishana dee waabata laga wariyey riwaayaddaa salaaddu markii hore laba ay ahaan jirto markaasaa laga dhigay 4 calaa kulli xaal salaad culammadu inta badani waa sheegtaa in salaadii uu jiray la tukan jiray weliba subaxii iyo habeenkii in la tukan jiray ama طuluucu shamsiga waktigaa iyo qabla guruubiha meelahaasi oo kale in la tukan jiray salaadabaa la tilmaamaa axaadiista iyagu sheegaya waktigaa in jibriil markiiba waysada nebiga baray iyo kuwaas iyagoo axaadiis iska sanadkooduna aada u liito matnigoodana nakaaro badan ay ku jiraan oo qaadasho badan ma leh nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu muddo dacwada sidaa waday ayaa waxaa la faray inuu dacwada kor ugu dhawaaqo waxaa soo degay aayadda qur-aan ee waandir cashiirataka alaqrabiin inkastoo baan filayaa mufasirkii abari
oo isagu fasdac bima tu'mar aayaadka uu leeyahay aayaadkaasaa jahriga keenay ayan kaanat waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo degay maalan aayaadkan waandir cashiirataka alaqrabiin ka tilmaamay suuratu shucaraa oo suurad makiya ah suuraddaasi oo ka warramaysa runtii qiso ay culammadu yidhaahdaan waxay u ahayd nebiga deganaanshiyo iyo ma'aalka qadiyadiisu ama cidhibteedu waxay noqon doonto la daareensiinayey waayo suuraddaasi waxay ka warramaysaa qisadiisoo kala martay fircawn iyo nebi muuse bilow ilaa dhammaad ayaa qisadaasi soo socota waxay kaloo ka warramaysaa qoomam horoo tiro badan oo nebiyadoodii diiday oo la halaagay nuux iyo caad iyo hamuud iyo qowmu ibraahim iyo qowmu luut iyo asxaabu layka waxaasoo dhan bay ka warramaysaa waxay kaloo ka warramaysaa un suuradda tani dadka fiicani cidhibta fiican inay iyagu yeelanayaan ama ay ku dambaynayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu bilaabay dacwo calana inuu sameeyo oo dadkao dhan loogu yeedhayo dacwadaasi aqaaribtana inuu ka bilaabo yaa qaraaba u ahaa nebiga calayhi salatu wasalaam quraysh oo dhami qaraabadiisa yahay axaadiista markaa inuu laba goor maalin intuu casuumadu sameeyey inuu isugu wada yeedhay oo dabeetana abilahab uu hadalka bilaabayba uu yidhi waa kuwan adeerada iyo tolkaayoo dham isu yimaadeen iyo waxa aad waddo iyo rabshadaa dadka ha geynin oo dagaal aanu reerku geli karin ha gelino yacni inuu hadalkiiba isagu ka hor bilaabay oo marka aanu maalintaa waxba odhanin nebigu maalin labaad inuu haddana isugu yeedhay maalinta labaad markaasi inuu ilaahay u mahad celiyey oo bacda shahaada uu la hadlay qaraabadiisii yarayd weedhuu ku yidhi inay ka mid ahayd ina araa'ida laa yakdibu ahlah sahanku tolkii uma been sheego yani reeru de hadday nin sahan loo dirto la yidhahdo bal meesha roobka heliya wax soo meel abaaraba intuu soo arko ma yidhaahdo reeraha soo rara waxaan soo arkay yani lagama filayo sahan la dirtay intuu soo noqdo inuu been akriyo waayo marka horeba sahanka in reer ku guuraa loo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bay leeyihin qabiilkiisaa yaro hoose markuu la hadlayay ina araa'ida laa yakdibu ahlah sahanka cidda loo dirtaa dadkooda uma been sheego ee ilaahay baan ku dhaartay aan alla kala jirine ilaahay rasuulkiisii baan ahay idinka gaar loo idinku soo diray dadkoo dhanna loo soo wada diray ilaahay baan ku dhaartay waa dhiman doontaan sidaa u seexataan waa laydin soo bixin doonaa sidaa usoo toostaan waana laydinku xisaabi doonaa waxaa camal samaysataan janno iyo naar abadiya midun baa geli doontaan riwaayadka daciifkii waxay tilmaamayaan maalan ama riwaayadka ahlu taariikhu ay wariyaan abu aalib baa u jawaabo wuxuu yidhi aad baan u jecelay inaan ku caawiyo nasiixadaadana waan aqbalay run inaad sheegaysana waan ogahay tolkaana waa kuwaas oo waxay ku kulansan yihiin inaanu mid adiga kaa mida nahay laakiin naftun baan yaro jeclaysanayn buu yidhi cabdilmualib diintiisa in laga weecdo naftun baan jeclaysanayn yani waa kuu gargaarayaa hiilka ad iga rabto waad iga helaysaa laakiin diintii reerkaan iska haysanaya anugu markay diin tahay halkii reerkaan joogaya laakiin inankii dee reer ka dhashay baato waad helaysaa gargaarkii waad iga helaysaa abulahab ba hadlay bay yidhahdeen oo isaga yidhi haadaa wallahi sawa waa ceeb waxaan aad wadaa abaalib iyo maxamedo waxay isugu jiibinaysaan waa ceeb abiaalib o reerka odagiisii baa tee inankaa yar inta in dagaal aynan qaadi karin aanu ina gelin maanta gacanta qabo abiaalibna wuxuu ugu jawaabay bay dhahan wallahi lanamnacanahu maa baqayna ilaahay baan ku dhaartay waan waxbaan ka celin inta aan noolahay inaan cidi taabanaynin calaa kulli xaal waxay tilmaamayaan ninkan tolnimadii iyo qabiilkiina inuu ugu hiiliyey rabay inuu u gargaaro wiilkan yaroo adeerka u yahay laakiin diin ahaan muu qaadanin riwaayaadkaasi inta badan waa mashhuur fi taariikh laakiin culamaa alxadiid wax sanad fiican u sheegaya maan arag ama xadiidka jabal safa isagoo xadiid saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha aayaadkani markay ku soo degeen ayuu soo baxa dabeetana wuxuu yimi buurtan yare safa la yidhaahdo safida iminka waa tan masaajidka gudihiisa labada kurood intan la dhex socdo laakiin berigii hore kacbada iyo dee safa daara iyo magaala udhexayn jirtayba yani meel aan kala durugsan oo buuro yaroo markaa banaan iskaga yaalo kale ayaa waakay meeshaa yar buu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu qayliyey yaa sabaaxaa waa sabaaxaa buu ku qayliyey weedhatani cinda alcarab waxay u dhigantaa un hayaayda soomaalida oo kale waa qof wax arkay ama balaayo sharkay ama war dhiilo leh ama wax qof raba inuu sheego
oo meesha intuu istaago marada lolo hayaa ay ka soo kacaa yidhaahdo uun warkii weeyaan carabtu say u isticmaali jirtay halkaasuu istaagay dabeetana waa qayliye qurayshi markaa yeedhatan way ka yaabtay war yaa qaylinaya waxa la arkay inuu moxamed yahay dee beenna laguma baran alamin saadiq baa loo yaqaan war waxa maanta ka dhawaajiyey baa la yidhi waa arrin khatar ee inugu yaacsiiya dadkii oo dhan baa isu soo baxay baa la yidhaha dad aad u badan qabiil aan cidi ka imani ma jirto markii la ogaaday inuu nebi yani moxamed bay iyagu u rumaysayin inuu nebi moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam ayaa cid waliba timid xataa abilahabkii mucaaradka ku ahaa baa yimi meeshiisi soo taagay markii la wada yimi ayuu qabiil qabiil u kala qaaday ya bani fahr ibnu ma yani waa quraysh ayaa qabiil ahaan quraysh buu ka soo bilaabay markaa waa reer bani faharow reer banu cadayow reer bani fulanow reer banu qabiilkii buu kala saarsaaray haddana hoos u sii waday reer banu cabdimunaafow reer banu cabdilmualibow ilaa riwaayadka qaarkood ay sheegayeen inuu soo gaadhsiiyey maxay xagga hoose faatima iyo cabaas iyo meelaha inuu sii gaadhay si uu sii kala waday wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi intuu u yeedhay qabaa'ilkii oo dhan ara'aytukum low akhbartukum ana khayla bilwaadi bisafxi hada aljabal turiidu an tugiira calaykum akuntum musadiqiin waar ma rumaysanaysaan haddaan idiin sheego war odhanaya buurtan dacalkeeda dambe fardaan ku soo arkayo ciidamo waa laydin gelaya ma iga rumaysan lahaydeen yani wuxuu rabaa inuu u tilmaamo marka hore khabarkiisa siday u arkayaan warkuu sheego war aydan ogeyn oo ah buurtaasi waxa ka dambeeya aydan arkaynin haddaan ka warramo oo sheego in col soo socdo laydin gelayo warkaa ma iga qaadanaysaan oo ma rumaysanaysaan waxay yidhahdeen nacam maa jarabna calayka kadiba saanan ku rumaysan bay yidhahdeen annagaa weligaaba wax been la yidhahdo kugu arag maa jarabna calayka ilaa sidqa run waxaan ahayn kuguma naqaano markaa saanan ku rumaysan waa tawti ah waxay culimmadu inta badan ka warramaan yani asxaabi dacwa wax fiican bay yidhaahdaan tawti ah inay u sameeyaan ta kale qofka hadalkiisa waxa la aqbali og yahay marka hiqa lagu qabo yani maalan tusaale iska fudud cid mansilatu shaykhuukha dadku ay u rumaysan yihin cid ay sheekhnimo u rumaysan yihin hadduu war sheego dadku markiiba waa wada qaadanaya nin dhalinyaro oo xataa haba cilmi badnaade hadduu intuu soo fadhiisto war akriyo wallaahi nin dhalinyarabaa midkaa sheegaya in la yidhahdo mooyaane waxaad moodaa dadka inaanay hore uga daadegeen waayo weli kalsoonidii ahaa ninkan inuu sheekh yahay ayaan dadku in badan mala qaadanin saa daraaddeed waa laga yaabaa in runba ha ahaatee wuxuu sheegayay in laga soo yaro warwareego marka hiqadu kalsoonida in qofka lagu qabo wax sheegaya wax weyn bay ka tahy sida awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam awalan kalsoonidoodii u dhistay oo wuxuu leeyay war may rumaysanaysaan haddaan halka idiin sheego bal saan idinku ahay agtiina waxay sheegeen markaa inay ku kalsoonyiin oo aqbalayaan akhbaartiisa wuxuu ku yidhi markaasi fainii nadiirun lakum bayna yadaya cadaabin shadiid haddaba waxa aan idinka digayaa oo aan ka digayaa cadaab kulul baan idinka digaya idinka horaysa oo idinka dambaysa weedhatan markuu yidhi oo uu saan ugu dhawaaqay oo weliba midhmidh u kala qaaday cidi dheg badan uma taagin bale wuu ku sii waday baa la yidhahdaa wuxuu u tilmaamay war qurayshay war ilaahay naftiina ka iibsada cadaabkaasi naftiina ka badbaadiya war anigu waxba ma hanto laa amliku lakum min allahi daran walaa nafca walaa ugni cankum min allahi shaya ilaahay agtiisa iminkaba anigu waxba idinkama taro ninkii ilaahay rumeeye ee raaca ayaa ilaahay badbaadinaya laakiin nebi maxamed baanu tol ahayn ama qaraabo ahayn ama tolnimo la wadaagna waxba ku heli maysaan buu nebigu leeyay alayh salaatu wasalaam ee yeeloo ilaahay raaca markaasuu weliba qabiil walba hoos ugu sii kacay ilaa xad bay yidhahdaan culimmada uu gaadhsiiyey cabaas ibnu cabdilmualib ilaa uu soo gaadhay ilaa uu inantiisii soo gaadhay baa la yidhaahdaa oo yidhi faatima bintu maxamedey waa kuwa xoolahaygiiyo waxaad doonaysa ay weydii wixii aan hayo waxbaan kaa siinayaay laakiin naftaada cadaab ka dhowro hadaad adigu diidda inaad cadaab iska ilaaliso waa ina nebi maxamed cidi cadaab kaaga dayn mayso ee cadaab iska dhowr buu ku leeyahy abilahab wuxuu ahaa nimaana la barakaynin nebi maxamedna adeer rumow ah yani kuwa nebiga ka fogaana ilaahay waa ku anfacay diintii abilahab oo adeerkii rumana alla kuma anficin abilahab markaasi wuxuu yidhi markay dadku saasuu u sheegay tabban laka saa'ir alyawma ala hada jamactana waar hoog maalinta inta ka hadhay ma waxaasaa dadka isugu yeedhaysay waxaan moodaya yani wax kale oo war inaad sheegayse waxaad la hayaay lahaydee dadka isugu yeedhaysayba ma intaasay ahayd buu ku leeyahay hooge
dabeetana waxaa soo degay aayaadkan qur'aan ee ilaahay leeyay tabbat yada abi lahabin watab ma aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atu xamaalata alxatab fii jiidiha xablun min masad. suuraddanina runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjizaadka ee qur-aanku inuu xagga alle ka yimi lagu rumaysan karo. waayo halkay carabtu yidhahdaan beedkiisii buu sallad qura ku wada riday, nebigu beedkiisii oo dhan sallad qura ku wada riday. markan aayaddani maxay sheegaysaa? quraysh dad badan oo gaala ah baa ku jiray soo maaha, yani waxaa muslimkuba wuu yaraa. abilahab gaar baa isaga loo tilmaamo, waxa la yidhaha adigu naartaad gelaysaa. abilahab wuu awoodi kari waaye mar qura inuu yidhahdo laa ilaha illa allah. hadduu laa ilaha illa allah mar qura yidhahdo maxaa dhici lahaa? de in la yidhahdo qur-aanku waa been iyo maxamed wuxuu sheegaya ilan kan waxaa tihi naartuu gelaya waa kan laa ilaha illa allah loo islaame jannuu geli doonaaye, wuxuuba waa dumi lahaaye. laakiin waa mucjizaadka, yani qur-aanka waxyaaba tilmaamaya inuu mucjisiya bay tilmaamaysaa. abu sufyaan lama odhan nin naar baad gelaysa isagoo kuwa ugu adag ka mid ahaa, bale 21 sannadood buu nebi maxamed la dagaalamayay. 23 sannadood ee waxyigu soo degayay, 21 sannadood qaa'id gaale hogaaminayuu ahaa. haddana ilaahay unbaa tawfiiqda waafajiyo 2 sannadood ee u dambeeyey unbuu isdabaqabto iska islaamay. dabeetana saxaabi buu noqday, islaamka u jihaatamo dagaalamo. markii dambe waa kaa yani abu sufyaan hadduu ahaan lahaa ninka la yidhaha tabbat yada abi sufyaanin, waxay noqon lahayd in la yidhaha qur-aanku been buu sheego, dee wuxuuba ma aha wax saxa. idan waxay leenahay aayadda suuraddan yari waxa ay tilmaamaysaa qur-aanku si uu mucjis u yahay. xataa basharkii meesha joogay ayaa la yidhi kan isagu weligii islaami maayo, fi naar baanu gelaya. dadkan kale si raja way qabaan oo wax islaami karoo badani waa ku jiraan. ficlanna dad badan baa dadkii islaamay, laakiin isagu sidiisiibuu ku halaagsamay oo ahlu naarkiisii ku yihi. nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ayuu dadkii oo dhan u wada gaadhsiiyey. ilaahayna wuxuu farayay fasdac bimaa tu'mar waacrid can ilmushrikiin. ku dhawaaq baa la yidhi oo caddee kala dilaaci waxa alla uu ku faray subxaana wa tacaala, gaaladana iskaga jeeso. sidii ambiyada kaleba u lahaayeen yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru, taas baa la yidhi caddee ou nabigu calayhi salaatu wasalaam bilaabay. dacwadii jahriga ahayd markay bilaabantay, waxaa bilaabmay markaasi dacwadii kasoo horjeedkeeda ahayd in loo ololeeyo sidii loo baktiin lahaa. awal waxay ahayd dee afraad, qof in loo tago oo islaamnimada loo sharxo oo ama galo ama diido bes. qof un baanay awal u socotay. dadkaa horena qof bay usoo islaameen. iminkase waa si calana inuu nebigu wax u sheego calayhi salaatu wasalaam, inuu tago goobahay ku shirayaan, meelaha lagu sheekaysto, dhulka la isugu yimaado, kacbada iyo meesha yimaadaan, dhulkay sanamada ku caabudaan, meel walba in laga sheego si calana. marka waxay noqotay dacwo ololaheeda wadata oo dib u bilaabantoo loo ololeeyey oo si cadna u socota. nimankii carabeedna markaa waxay bilaabeen in la isu tago sidii loo waajihi lahaa laga fekero. walidalik baa waxaa bilaabmay isu tagyadii ahaa maalan qaababkii looga hortegi lahaa in la sameeyo. maalan waxaynu naqaanaa culamada taarikh inay soo arooriyaan inay shireen carabta oo wax la isweydweydiiyey, oo waxyaabaha la isweydweydiiyey ee ka mid ahayd waliid binu mugiire oo kale ayay yidhaahdaan baa isugu yeedho waxay yidhahdeen war maxaynu nidhaahnaa ninkan, waktigii xajkiina waa soo dhowyay. jaahiliyadii carabta weli way xajaysaa oo nebi ibraahim dee diintii uu ka tegey weeyaan. marka waxaa la leeyahay war wakti mawsamaa soo dhowo maki buuxsami doonto. dee hadduu dadka intuu wixiisan uu bandhigo uu dad helana waaba laynaga badan karaa, ninkani xoog buu helayaay. yuu xoog helina dadka kale aan ka hortagnay maxaynu nidhaahnaa, maxaa dadkii lagala hortegaya? waxyaabaha isweydiinaya waxaa ka mid ah aan idhaahno waa gabaya, waa falalow, waa sixiroole, waa caynkan. waa kuwa culamaa siira sheegay inuu mid kasta waliid binu mugiire diidanayo u lahaa ma jirto. kanna maaha hadalkiisana, hadalkani hadal kaahin waan aqaanaa warkii iyo sixiroole iyo falalow warkii maaha. ma aha ninkani nin waalan ma aha sixiroole iyo warkii maan aqaana. gabayaa waan aqaanaa iyo gabayada sida badaha gabayga oo dhan la tiriyo o dhan waan aqaanaa. mid kasta oo bad gabaya waan garanaya, waxaan wadaa bad gabay maaha. aakhirkii bay yidhahdeen de bal waaya haddaa maxaanu dhahnaa. waxay sheegeen oo dhan markuu radiyey ayay isagii yidhahdeen de bal waaya adigu tala keen haddaba maxaan idhahnaa. wax kala garan maayo buu yidhi waxa ugu dhodhow inaynu idhaahno maxay, waxaan waa sixirkuunbaa malaa la qaatay xaggiisa inaynu marroon idhaahno, ninkani waa sixiroole. waana suuratu lmudatir qaybaheedan dambe sababtii kusoo degaysay culamadu sheegaan. inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadar uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in hada ilaa sixrun yu'thar in hada ilaa qawlu lbashar. waxa la yidhaha weedhaa intay qaateen
ayaa dadkii la isu qaybiyey. markaa waxaa la yidhi dhulka maka laga soo galo, maka waa buuraley, maadaama dhulku uu buuralayayna wadooyin yaroo kooban unbaa jiro oo laga soo galgalo. dhulka laga soo galoo dhan dad ha loo qaybiyo, dadka ka hortaga oo wacyi geliya oo faafiya brobagandadeenna tan oo been fakatay dee runimo gaadhadii un weeyaane, beentan ha la sii daldalo inta aanu warkani gaadhin. beentan iyo faafinteeduna runtii waa asaaliib soo jireena, xataa kuwan dambe ay rumaysan yihiin. yani maalan qaacidada iclaanka bay idhahdeen ugu weyne la rumaysan yahay waa un warka in lagu celceliyo dadku aakhirka uu rumaysanaya. b b c daasi markay idinku wado waxay sheegtay dhan run baa imika la isaga haystaa, waa daliil. b b c daa sheegtay run buu haystaa, waxay b b c oo sheegtaa inay diinta ka mid tahay. mashkiladdu waxa weeya waa ku celcelinta tan, waayo waxaa la yidhaha ra'yiga kan maalan nadariyadda iclaamiga ee ku celceliska dunida waxay uga dambaysaa coblas nin la odhan jiray. coblas waa wasiirkii iclaamka ee hitler baa la yidhahdaa. hitler wasiirkiisa iclaamku waxay ku talagaleen ciidan baa jabay iyo waxaan in la sheegin in been dunida lagu harqiyo. dabeetana wariyaashii buu ninkani wuxuu kula ballamay, maadaama dawladdu dee dawladda naazi oo adag ay ahayd oo isku xidhan, beenta sheega laakiin ugu celceliya dadku way rumaysanayaan une. mujarad buu ninkaasi amar wuxuu ku bixiyeen ku celceliya. marka waxay dhahan waa qaacida iclaamiya, dadku waxay u baahan yihiin in warka loogu celceliyo, akhiiran waa iska qaadanayaan. haddii dhowr goor lagu celiyo ninkaasi waa irhaabi dadkao dham irhaabay kuu qaadanayaan. waa mujarad un in warkaasi uu noqdo war lagu celceliyo inuu noqdo. waxay qaateen nimankan carbeed inay meelahaasi oo dhan tagaan, beentaasi la faafiyo, laga horaysiiyo. culamaai taariikh baa sida usoo wariya, laakiin ficilka maalan abulahab oo kale waxaa la yidhaahdaa dadka daba socday musnadu imaamu axmed saa ku qoran oo kale inuu ka mid ahaa isagu raggii baxayey, bale inuu isagu nebiga dabageli jirayba. isagu wuxuu yidhi aniga igu daaya, idinku warka kale qabaa'ilkan iyo waxaan imanaya kusii faafiya xajka marka lasugu yimaado, isagana aniga ii daayo inuu isaga daba soconaya. marka waxaa la yidhaha intuu nebiga daba galo ayuu nebigu wuxuu tegayay manaasishii dadku ay degayaan, suuqyadii dadku ay kala degayaan, cukaad iyo majana iyo dilmajaas iyo waa meelihii markaa carabta ay degi jirtay. marka la isugu yimaado xajka meelaha la degaa, xajajka iyo meelahan markay soo maraan suuq baac mushtar buu ahaayo, wixii dunida la isaga keeno o dhan baa lagu kala iibsadaa. wuxuu kaloo ahaan jiray meel qabaa'ilka carbeed isugu faanaan oo la isugu afdhigto, qabiil waliba gabayaagiisa iyo aftahankiisuu keeni jiro, ama khudbad ka jeedin jiray ama gabay akhriyi jiray oo gabayadaasi ay ahaan jireen. markaa la yidhaha wallahi qabiilka dee reer hebel gabayaagooda loo babacdhigi kari maayo, oo meel adabku la isugu soo bandhiga bay ahayd. markuu nebigu daba socdo ee uu reer meel tegan u yimaado bay yidhaahda ilaahay ka cabsada, war yaa wax iga dhicinayaan ilaahay diintiisa dad gaadhsiiya. abilahab baa daba taagan oo leh anaa adeerkii iyo wiilkan yar waxba ha dhegaysanina, waa wiil yaroo bidcooloo diinta ka baxaya buu yidhahaa. saabi bay ku sheegi jireen. saabi waa qofkii diin hore ka baxay ee diin dambe gala, yacni waa wiil yaroo bidcoolo ah oo ka tegaya anaa adeerkii iyo waxba ka dhegaysanina buu la daba taagnaa. asaaliib badan bay adeegsadeen runtii. asaaliibtaasi dacwada lagaga hortegay waktigaasi waxaa ka mid ahaa in lagu jees-jeeso, lagu cayaayiro, istihzaa loo muujiyo, lagu qosqoslo, la maago, laga dhigo kaanamaa qof waalan inuu yahay. qofka haddii mujtamac oo dhami meeshaad soo fadhiistaba haddii lagugu qoslo oo lagugu boqo waad waalanaysaa akhirka. yani qof waalan oo kale ad kaanaysaa. dadkan xataa waalan dadka waa aragteen, isagoo marka hore iskaba yaro miyir qabaan xoog u waalan bay carruurta iyo dadka iyo daba buuqaano markaasuu kasii wada dhigaa. adigoo miyir qaba haddii kuwa lagu itixaamo waad waalanaysaa runtii. waxay isku dayeen markaa in loo sameeyo dacaayadda tana ilaa xad in suuqa laga saari karo. walidaalika waa ka dagaaladaas oo dhan qur-aanku ka warramaya, dagaalka iclaamiga ah ee ilaahay qur-aanku leeyay waqaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun bay yidhahdaan. ilaahay ka baqa buu le markaasay leeyihin kan qur-aanku kusoo degayow nin waalan baa tahay bay leeyihin. waxyaabay ku lahaayeen waxaa ka mid ah sukhriyada iyo kadibka keenayay. wacajibuu an ja'ahum mundiru minhum waqaala alkaafiruuna hada saaxirun kadaab. waxay la yaabeen baa ilahay yidhi mid digaya inuu u yimaado, markaasay gaaladu waxay yidhahdeen waa sixiroole beenaale ah ayay yidhaahdeen. waxaa ka sii dana sida isha loogu mudaye loogu xaqiray, yani hadalka marmar baa ficilka iyo hamziga iyo ilkumudka iyo carabka uu kasii faalxun yahay. walidalika ba ilahay wuxuu leeyay wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim. waxaabay ku dhowaadeen baa ilahay leeyay kuwa gaaleed inay isha kugu legdaan ba alla yidhi lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun. bale istihzaagoodu wuxuu gaadhay inay yidhaahdaan ilaahay ma cid adiga dhaanto u soo dirtaabu waay intuu agoon yara la soo dirayo. odayadii qorayshood oo dhamme way joogaane maa qoraysh iyo dadkii hantiilaa iyo dadkii waxayste iyo waayeelka maxaa loo soo diri waaye inan yaroo agoon iyo raja kusoo koray alla soo diranayo.
waa ka alla ku tilmaamaya markay iyagu lahaayeen ma ilaahay ma adu kugu manaystay bay leeyahay annaga dhexdayada waa ka allana ugu jawaabaya alaysa allahu bi'alama bishaakiriin war ilaahay miyaanu ogeyn cidda uu mahadnaqaysa ciddu isagu dooranayo miyaanu isagu ogeyn waa ka ilaahay quraanka ka waramay in alladina ajramu kanu min alladina aamanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين جاس كان إيا عيارتن إيا قصل كان إيا بوقا إيا وحي قارين دي حد قفك عادي وحي نلو الله والكرا ولذلك ما إلهي القرآن كوحو قال كل نبي يسقط المام يا مشالدن النفط أيكو هيسو ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون بإلهي waan ogahay baa la yiri subhanahu wa ta'ala ila laabto ku xidhiidhtoomayso waxanay ka sheegayaan sidanay ku dacaadeynayaan iyo waxa ka sheegay hadii mujtamac waliba kuwii kuugu xigay tol iyo qaraaba Allah hadii alla kugu diro iyagu ka daba shaqeeyaan oo saa lagu dacaadeeyo magaalada dhan ka soo horjeesto dadkoo dhan ku wada dacaadeeyo nafta isugu ka imanaysa ilaahay laakiin wuxuu tilmaamay markii loo sheegay walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun markii alla tilmaamay waxa kale oo alla uu sheegay suurat al-hijr wuxuu kaga bixi lahaa deetana waxa la yiri fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta yatika al-yaqin ilaahay wuxuu yiri iska tasbiixso oo ilaahay u sujuud oo xidhiidhka alla leeday badi waxan kale oo dhamma waxba noqon maayaan idan qofka muslimka ah sanad uu ku tiirsado balaayo dhamma haday halasho sanad lagu tiirsado waa Allah subhanahu wa ta'ala ilaahayna qofka muslimkii wuxuu kula hadlaa waa markuu salaada tukanayo qofku markuu salaada tukanayo ilaahay buu toos ula hadlaya ilaahay baana ku jawaabaya sawa xadiista saxiixa oo nabigu ku tilmaamay alayhi salaatu wasalaam saadaradeed baa ilaahay wuxuu leeyahay tasbiixso oo sujuud oo ilaahay caabud ilaa inta geeridu kaaga imanayso halkaaga joog inna kafaynaka almustahzi'in baa ilaahay kuwan ku jeesjeesaya ana ka kaafinaye sida yeel baa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala inna kafaynaka almustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'a allahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun waxa kale oo alla uu tilmaamay nabiga alayhi salaatu wasalaam طريقan inuu yahay طريقي anbiyadu mari jirtay marka inaanay kaliga ahayn dhibtu yahay waa wado mu'abbada yani waa wado la budliyay oo hortaajira waa soo maray nabiyadii hore ay soo mareen adkaysa la leeyahay walidalika baa ilaahay wuxuu leeyahay walaqad istuhzi'a birusulin min qablik fahaqa billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un adiga rusushii ka horeysayba waa lagu jeesjeesay baa ilaahay yiri laakiin baladu wuxuu bay ku dambaysaa baa ilaahay yiri kuwan jeesjeesaya ee adigu طريقaagaasi hay harb dacaayaha badan way wadeen waxay kala wadeen yani xurub tira badan bay nabiga la galeen alayhi salaatu wasalaam waxay kala wadeen harb shubahat itharatu shubahat iyo dacaayad been oo kala tira badan in la sameeyo oo dadka sidii caamada loo shaki galin lahaa mar waxay dhahaan waa adqaas ahlam maxamed habeenkii uu buriyoodayo deetana subaxiibu intuu isku soo toostay bay yiraahdeen ayuu la yimaaday yiraahday waa leeso waxyooday bal iftaraahu bay lahaayeen waa soo been abuurta inma yuallimuhu bashar dad baa soo dhigdhiga bay yiraahdeen meelaha isu ka soo dhigdhigeeyo waxoogaa uu dadka soo dhigdhigeystay in hada illa ifkun iftaraahu wa aanahu alayhi qawmun akharun qaar kale ugu gargaaray bay yiraahdeen oo jimanba wuxuu sheegay waxbay sheegaan waa qaar kale bal waxaad ka garan kartaa hatta dacaayadan siday u faaftay dadku u aqbalay ahad saxaaba wuxuu ku islaamay masaladan damad saxaabiga la yiraahdo wuxuu ahaa qabla alislam dadka jinka ka saara ayuu damadaha xadiiska soo xadiis saxiixa damad marka waxaan maqlay buu yiri ninkaasi in jin dardareen wararkii la soo gaarsiiyay waxa laga dhaadhicay maxamed in jin dardaray nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam marka waxaan maqlay buu yiri ninkaasi inuu xanuunsanayo jin dardaray dabeetana uu soo lugayo waxaan u socday buu war bal miskiinkaasi dadku ay ku qaylinayaan jinka ka saartay magaalada Makka wuxuu yimi markaas inuu Maxamed jinka ka saaro kadibna waanu imo waxaan ku yiri buu nin dhakhtar oo tabiiba jimankana dadka waan ka saara dibtaan waa lagu sheegaya aan bahalka ka bixiyo ka farsameeyo warkiisii markuu akhriyay ee uu sheegtay ayuu nabiguna alayhi salaatu wasalaam la hadlay nabigu alayhi salaatu wasalaam marka xamdaladii ku bilaabay innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'iinu xamdaladu akhriyay markuu ku akhriyay ayaan waxaan yiri aacidhu iigu celi haddana wuu ku celiyay buu yiri markaasaan yiri buu yiri haddana aacidhu iigu celi wuu ku celiyay buu yiri markaasaan waxaan gartay buu yiri warka ninkani sheegayo inaanu ahayn
warkii jibanka iyo sixroolayaasha iyo baabkan kaahinada iyo farsamadan aqaanay warkeedii inaanay ahayn baan gartay buu yidhi markaasuu islaamay oo dadyagii ugu horreeya islaamu ka mid yahay saxaabadii saabiqiinta ahaa ayuu ku jiraa damaad sababtu uu islaamayna waa nebi maxamed jinka ka soo saar buu is yidhi yacni waxaad garan kartaa markaa dacaayaddu siday u faaftay ama dadku uu qabuulay waa mushkiladda imika iclaamka reer galbeed inagu hayo o kale reer galbeed iyagaa dadka dilaya waxay doonaan samaynaya iyagaana warramaya oo wixii jirayna iyagaa ka sheegayo dadka u sheegaya dadku waxay sheegayaan unbuu run u haystaa halna kama run aha inta ugu badani waa been dee ilaahayna marka horeba wuxuuna yidhi wain ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu faasiq hadduu war idinla yimaado iska hubiyaa la yidhi kaafirka isaga kiisa maxaad u malayn markaa innaguna kaafirka inugu hor rumaysan ogni waxay sheeganayeen iyagu markaasi waa asaatiirulawaliin bay lahaayeen waxaan ku soo degay bale waa ka qur-aan soo degay ilaahay uu masaladan ka afinayo markay yidhaahdeen jiman baa ku soo degay iyo ra'yi baa la socday carabta waxay rumaysnaan jireen nimanka gabayaagooda inta badan in wax loo sheeg sheego oo jin kalaa la socday odhan jireen gabayaaya haddaad aragta bay jiman baa wuxuu sheega saasay rumaysnaan jireen marka waa ra'yi fulaan baa la odhan jiray oo la socdaa wax sheeg sheegaya ilaahay baa markaa qur-aan soo dejiyey leh hal unabi'ukum calaa man tanazzalu shayaaiin tanazzalu calaa kulli afaakin atiin baa ilahay yidhi waxaa ma idiin warramaabaa ilahay yidhi kuwa shaydaamadu kusoo degaan sixroolayaasha iyo beleda iyo kuwa faaliya iyo waxaa shayaaiintu kusoo degaan waa calaa kulli afaakin atiin mid kastoo beenaalo ah oo dembi badanaa buu kusoo degaa ee bal eega nebi maxamed oo ma ku haysaan calayhi salaatu wasalaam mid beenaalo oo dembi badanaa taarikhdiisa ma ku haysaan siiradiisii lagu haysaane idan waxa weeyaan ma aha shaksiyad uu shaydaanba xaggeeda usoo kici karo kuwa shayaadiinta wax ku akrinayaan waa inay sifaadkan yeeshaan waxay badiyeen nimanka carbeed oo in badan isku dayeen inay dadka yidhaahdaan ama waa waalan yahay ama waa gabaya ilaa qur-aan soo degaya ilaahay uu leeyahy maaha gabaya oo ilaahay leeyahay shaacir iyo majnuun toona maaha bale ilaahay wuxuu xataa qur-aanka lagu sifeeyey sifaadka gabayaaga lagu yaqaano 3 sifaa lagu tilmaamay والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون صدحنا صفات خاصيات بيلين بالي بل كأجا نبي محمد مقايسة وعلى الشعراء هذه يقول روح الرعادتك غوغائيين تا جماهير اسكا مساكين او wax badan dadaan kala ogeyn ayuun intu hadal isugu toostosiyo qurxiyun ba ka daba sacabiyo raaca waxa kale oo ilaahay uu ku sheegay kooxda shucaradu dadka markaa daba gala waa noocaas la yiri fanaaniinta iyo noocaasi inta ugu badan leh dumar iyo carruur iyo dad waalan daba socda bal u fiirsan adigu mid gabiya ama heesa ama noocaasi illa alladina aamanu ba ilaahay ka soo reebay koox yar baa la soo reebay in yar baa laga istitnoodo la yiri kuwaas waa ka hadhan laakiin inta ugu badan leh waa nooca kan waxa kale oo Allah sheegay subhanahu wa ta'ala alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wadad meel walba iska dhumbada wuxuu arkaba wax ka sheega nabi maxamed kaama yahay baa la leeyahay salaatu wasalaam hadiyo goor dadka gabayaagi waxay u badan yihiin dad tartaarina dad hadal badan oo sheeko badan oo wax walba wax ka sheego hadlawna afka isku darin waxa kale oo ilaahay ku sheegay wa annahum yaquluna ma la yaf'alun waxaanay sameeyna way sheegtaan faanu gabayaagu waa faan badan yahay hadiyo goor hadduu reerkooda amaanayo reerkooda bahaladii dadkoo dhan cunay buu ka dhigaya hadduu isagu is amaanayo yani nin khatar buu iska dhigaya waa waxaanu sameeyno tiro badan ayuu sheegtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waannahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaanay samaynoo tiro badanna way sheegtaan nebi maxamed miyaa sifaadkaa ku haysaan baa ilaahay leeyahy yani ma aha sifaadkan oo dhan laguma haya sifaad waan wanaagsan baa lagu haya qur-aankuna in badan ayuu xalaaliye waxay shubahaad soo arooriyeen uu radiyey shubahaadkaa tirada badan le ay soo aroorinayeen inta badan waa shubahaad ku salaysnaa madmadow in dadka laga geliyo diinta gaar ahaan tawxiidka iyo risaaladu nabi maxamed waday iyo inuu bacthi jiro waqti dambe la soo saarayo qiyaamo inuu jiro iyo quraankan inuu xagga alle ka yimi waxaasay dadka shubahaadka gelin jireen mar ay yiraahdaan ilaahay muxuu malaayigu soo diri waayay iyo mar ay yiraahdaan bal rasuulkan suuqa idin la wareegay suuqa isba ka xoogsanaya haddana nabiga idin sheeganaya eega yani waxay rabaan inay yiraahdaan ma li hada rasuul yaakulu ta'am wa yamshi fi al-aswaq bayda waxa rasuulkan cunada cunaya isba suuqa marmaraya ilaahayna subhanahu wa ta'ala in badan buu wuxuu radinay ila had beenta ay abuurteen ay yiraahdeen ma anzala lahu ala basharin min shay ilaahay ba dadka wax kuma soo dejiye maxaa malaa'ig loo keenay waayay bay yiraahdeen isagoo ilaahay radinaya waa kale qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi muusa
nebi muuse kiisa way rumaysnaayeen iyagu haddaa kii hore muuse sidee yaa keenay baa alla leeyay subxaana wa tacaala miyaan bini aadam ahayn cidda loo soo dhiibay waa ka alle subxaana wa tacaala ku tilmaamaya muuse ba inuu rasuul ahaa nebi maxamedna inuu rasuul yahay oo la mid yahay mar waxay lahaayeen annaba bini aadam kula mida baanu ne maanu rasuulla noqono ilaahayna waa ka uu tilmaamaya allahu yaclamu xaysu yajcalu risaalata ilaahay isagaa og cidduu dooranaya uu rasuul ka dhigayo waxay ahayd un dafiraad la raba in nebi maxamed la dafiray dee nebi ibraahim iyo ismaaciilba way rumaysnaayeen inay ambiyo hore ahaayeen waxay laakiin rabeen inay kolba dacaayad nooca furaan mar ay yidhaahdaan ilaahay muxuu miskiinkaaga yara agoonkaa ka soo diraya muu labadii oday ee magaalooyinka waaweyn soo diro lawlaa nuzila hada alqur'aana calaa rajulin min alqaryatayni cadiim bay lahayd labada oday ee waaweyn ee labada magaalo maa mid ka mida lasoo dira maxaa adiga lagaa soo diraya ilaahay baa wuxuu ku leeyahy ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ma iyagaa ilaahay naxariistiisa qaybiya markay odayaal u qaybinayaan iyo nooca kan ma iyagaa ilaahay naxariistiisa qaybiya baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata yani ilahay isagaa og cidda uu rasuul ka dhigayo iyo cidda ku habboon inay risaalo qaado marar kale waa ka ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inay lahaayeen waa maxay rasuulkan suuqa jooga ee xoogsanaya caynkani ma ilaahay ama rasuul soo diro ama hadduu rasuulku xagga alle ka socdo boqoraduba ninka ay soo dirayaan cid u dirayaan xaashiyo dhan baa la raacaya yani madaxweynuhu markuu mid idin soo dirayo wasiire waxoogaa askar iyo dad la socda iyo waxoogaa lacagay waxbaa lasoo raacaya muu qof muuqda noqda bay leeyihin hadduu rasuul lasoo diray uu yahay waa ka ilaahay ku tilmaamaya inay yidhaahdeen lawlaa unzila ilayhi malak fayakunu macahu nadiira aw yulqaa ilayhi kanzun aw takunu lahu janna ya'kulu minha waqaala الظaalimuuna in tatabicuuna ilaa rajula masxuura bay dhahayn nin la sixro waalanuun ayaa daba socotaan laakiin waxaasoo dhan ilaahay baa radiyey subxaana wa tacaala waxyaabaha ay ka horgeynayeen waxaa ka mid a inay dacaayad ku furaana inaan aakhira jirin aidaa mitna wakuna turaaban wacidaamana inaa lamabcuuhuun aw aabaa'una alawaluun ama dalika rajcun baciid meel kale ay ku tilmaamayeen waxaasoo dhanna ilaahay baa wada radiyey subxaana wa tacaala oo u tilmaamay bacthu bacda almowt waxaa loogu talagalay dee dadku xumahan ay dunida ka samaynayaane tirada badan leh iyo hadhow inay sidaa un lagu wada sinaado qof waliba mar intuu dhinto un de waa xukum isku wada mid a kii kunka dilay iyo kii aan waxba dilin geeridu way wada haleelaysaa